marka hore ilaahay baa mahadle mar labaad waxa mahad iska leh dadka marti sharafta qiimaha leh ee meesha isku timid oo ay ka yihiin culimada iyo ganacsiyada Cabdulqaadir iyo 13 keena xubnood ee golaha deegaanka dhalinyarta isku xilqaantay magaalada Boorama inay qurxiso kulli inuu bilowda waxaan ku faraxsanahay in aan mar labaad fiis cusub ama wuxuu cusub alla kulano Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilkaadu ka soo marka hore waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan kelmado kooban aan iraahdo kelmadaha guud ahaan xildhibaanada ayaan leeyahay gaar ahaanna inta sida gaarka ah mas'uuliyadda u qaaday oo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenku ay ugu horeeyaan ayaan leeyahay ta koobaad horta mas'uuliyad baad qaadeen mas'uuliyaddaasina waa mas'uuliyad culus weey nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati mid kasto idinka nigamidihi waa raaci waa ilaaliye waa xubaa loo diray mas'uuliyad baa la raaciyay maalinta qiyaamana waa la weydiinaya ninba halka uu joogo ee uu mas'uul ka yahay buu madaxweyne ka yahay intiina la doortay inaad mas'uuliyadda aad qaadeen ee aad ku dhaarateen kitaabkii quraanka aad ku dhaarateen ee aad isa soo bandhigteen ee aad tiraahdeen ummadaas baan wax u qabanaynaa aad tiraahdeen inaad Ilaahay kaga cabsataan horta marka koobaad horta mas'uuliyadda aad qaadeen Ilaahay kaga cabsada rajada idinka qabnaana waa tan ugu dhalisay macnaha inaan idin marti qaadno saadaradeed waxaan doonaynaa walaalahayow inaad Ilaahay uga cabsataan xilka hal qaadeen oo dadkan ma taqaanaayay iskugu jira danyarta masaakiinta kuwa aan karsanin ee la dhibaateynayo salahan waxa imika cashuurtii la qaaday oo waxa weeyaan maamo dhibaataysan oo banaan joogta laga qaaday ayaa waxa weeyaan imanaysa inaan waxba loogu qabanin taasina waxaan idinka codsanaynaa inaad wax ku qabataan oo waxaan idin kula dardaarmaynaa wax qabad maanta Boorama qof kasta oo jooga wuxuu dhagaha u taagayaa inamadaasi maxay bedeli doonaan waxaad bedeli doontaan oo wax la idinka fadhiyo maadaama aad tihiin dadkaas ummadii ay dooratay ee ay aamintay ay codkoodii siiyeen waxay idinku siiyeen waxay ahayd rajo idinka qabaan rajada idinka qabaan marka inaad ka abaal gudaan baa idinka baahay nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam qofka macruuf idin sameeya waa inaad u abaal gudaan oo wuxuu ka doonaya qofkii inaad maxaan ku raada wixii uu ku gashaday aad soo celiso shada marka waxa idinku dooratay waxay ahayd inaad tihiin dad mutacallimiina inaad tihiin dad ka damqanaya dhibaatada wadankooda haysata magaaladooda haysata يعني waxa weey cadaalad darrada waxa soo dhan insha Allah kulankani wuxuu ahaa waa duco iyo dardaaran mid waxa weeyaan ducada Ilaahay hay noo aqbalo dardaaran ka leeyna siiyayna Ilaahay hay naga dhigo kuwii ku waana qaata ee wacyigaasi weeleeya run ahaantii maanta waxaynu joognaa bulshadeena waynu ka warhaynaa xaqiiqooyinkana waynu ognahay iyo wixii degmada ka jira cidda wax laga filayaana maanta waa inaga bulshaduna waxay lahayd annagu dad wanaagsan baan hor la maamuli karo cashuurtana laga qaado laakiin se halkay wax ku maqan yihiin waa idinka oo ciddii cashuurta loo dhiibay oo madaxa naga xun bay lahayd insha Allah waxa rajaynaynaa inaynu inaguna Ilaahay intaynu la kaashano aynu qaadano doorkeenaasi oo ummadda aynu nidhaahno wixii aad nagu aaminteen waa kaas waxaasaan idinku qabanay waxa kale oo ballan qaadaynaa inaanu samayno gudidii horumarinta degmada haddii Ilaahayda kullay markaanu fadhiisano axadda xil wareejintii dhacaysa sidaan ogna wixii axadda ka dambeeya hawlo badan baa noo bilaabmi doona insha Allah waxa rajaynaynaa inaynu magaalada iyo degmada ku hogaamino horumar wanaagsan ummaduna waxa ay nagu aaminaan aanu ku soo celino haddii Ilaahay raahdo albaabadeeduna way idin furnaanayaan cid kasta oo wanaag iyo horumarna la jecelna waanu soo dhaweynaynaa kullay cid gaara waxba siin mayno oo waxaanu haynaa waa xoolihii ummadda laakiinse waxa dadka wada anfici doona inaanu ka shaqeyno danta guud haddii